الله naxariiste waa marxuun mahad boorow oo dhawaan lagu dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaana maanta oo jimco ahayd salaada khudbada kadib lagu aasay duleedka magaalada muqdisho qabraha loogu magacaabo qabraha muqdisho aaskiisa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan qaybaha bulshada oo ay ku jiraan ciyaartooy macallimiin maamulada xiriirada kubadda cagta ee dalka ka jira iyo waliba taageerayaasha kubadda cagta ee aad ku jecel mahad ayaa waxa uu u geeriyooday kadib markii rasaas uu ku dhuftay nin la sheegay in saaxiibo dhow ay ahaayeen oo isagana ku sugnaa degmada waaberi ee magaalada muqdisho halkaas uu ka socday tartanka kubadda cagta ramadaanka oo inta badan lagu qabto degmada waaberi ee magaalada muqdisho markii uu geeriyooday kadib ayaa waxaa la sheegay in uu geeriyooday xabad kaga dhacday dhuunta oo uu markii hore la sakaraaday kadibna uu geeriyooday aaskiisa kadib lama aasin maalintii khamiista ahayd waxaana suura gashay maanta jimco ah in la aaso waxaana aaskiisa intaan la aasin ka hor salaada janaasada lagula tukaday mid ka mid ah masaajidada ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho aaska kadib warbaahinta waxaa la hadlay dadkii aas ka soo qayb galay oo runtii ka sheekeeyay waxyaabaha ay mahad ku yaqaaneen waxaanay sheegeen in mahad uu ahaa qof dhalinyaro ah ahlu salaad ah oo masaajidka ku tukada safka hore afgaaban aadna u taxadar badan dadkana isku wadi jiray waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo isboortiga kubadda cagta aad u jeclaa wax badanna ka soo shaqeeyay maamulka degmada waaberi ee magaalada muqdisho iyo hay'adaha amniga waxay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay ninka dilka u geystay allah u naxariistay mahad dilkan loo geystay mahad waxa uu yimid markii mahad ninka dili doona uu ka kiciyay boos oo ciyaar lagu daawanayay xarunta degmada waaberi ee magaalada muqdisho tartanka ramadaanka oo xarunta degmada ka socday waxaana ninkaasi laga kiciyay boos la rabay inuu fariisto taliyaha cusub ee saldhigga degmada waaberi sida dadka qaar ay sheegayeen markii ninkan booska laga kiciyay ciyaartan ay dhamaatay kadib waa uu baxay qori uu soo qaatay waxaana uu dilay mahad oo gurigiisa ku jiro intaana afurin ka hor salaadii maqrib markii la tukaday waxaana la sheegay mahad inuu ku soo tukaday masaajidka uu isu diyaarinayo inuu afuro markaas way gacanka xaq daran dishay allah u naxariistee dadkii yaqaanay ee aaskiisa maanta ka qayb galay waxay sheegeen nin dhalinyaraha afgaaban salaadaha ku dadaala aadna u jeclaa nabadda iyo isdhexgalka waxaan rajaynaynaa walaalkeen in jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo oo uu samir iyo iimaanna ka siiyo ehelkiisa Allah